nin ganacsada ah oo u dhashay dalka Suuriya ayaa la sheegay inuusan weligii ku khasaarin ganacsigiisa. wax waliba uu isku dayo inuu ka beecsho waxa uu ka heli jiray faa'iido uu ku qanacsan yahay. xataa mararka qaarkood waxa uu heli jiray faa'iidada uu filayo mid ka sii badan. maalin maalmaha kamid ah ayuu arrintaasi waxa uu sheegay rag ay saaxiibo ahaayeen oo aad isugu dhawaayeen. raggii oo arrintaasi aamin waayay ayaa waxa ay ku yiraahdeen waxaan kula galaynaa sharad, waxaan rabnaa inaad ka soo baxdo. raggan asxaabta ah hadafkii ujeedka ay ka lahaayeen in ay ninkan loolanka geliyaan waxay ahayd inay ogaadaan in waxa uu sheegayo ay run tahay iyo in kale. sababtoo ah ma jirto qof ganacsada oo haba yaraatee aan wajihin khasaaro. si ay u ogaadaan ninkan waxa uu sheegayo waxa ay u keeneen xujo adag oo haddii uu ka soo baxo la dhihi karo ninkan waxa uu sheegayo waa run. laakiin xujadaasi waxay u muuqatay 99.9% in uu ku fashilmi doono soona wajihi doono khasaaro. qorshaha lagu tijaabinayo ninkan ganacsadaha ee lagu ogaanayo waxa uu sheegayo waxay ahayd in magaalada Dimashq ee dalka Suuriya uu ka qaado timir una iib geeyo magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. xilligaas waxay ahayd halka kaliya ee laga keenay timirta ugu badan dunida uguna raqiisan. waxaan marna suuragal ahayn in badeeco halkii ay ka timid dib inta loogu soo celiyo haddana faa'iido laga raadinayo. waxay filayeen in arrintaasi ay khasaare cad ku noqon doonto ninkan. markii la fiiriyo qawaaniinta ganacsigana waxa ay sheegaysaa arrintaasi inay sax tahay. ganacsadihii oo aqbalay arrintaasi loolankan lala galay hadafkiisuna yahay inuu u sheego nimankan saaxiibadiisa inuusan weligii ku khasaarin ganacsi uu isaga galay ayaa magaalada Dimashq waxa uu ka soo qaaday timir aad u fara badan oo markeedii horeba laga keenay magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. markii uu u soo dhawaaday magaaladii Baghdad ayaa wuxuu hareeraheedii ku arkay dadkii reer Baghdad oo idil oo banaanka isugu soo baxay oo nin waliba dhulka eegayo waxna la raadinayo. inta uu istaagay oo dadkii u yeeray kuna yiri war maxaa jira maanta? waxay dadkan magaalada dhanka ka soo baxay banaanka isugu yimid ee qof waliba dhulka wax ka raadinayo. dadkii reer Baghdad ee banaankan joogay waxay u sheegeen in khaliifka iyo gabadhiisa ay magaalada banaankeeda u soo aadeen damaashaad iyo inay ugaarsi yar sameeyaan. intii ay howlahoodii damaashaadka ku jireen gabadhii khaliifka ay ka luntay katiinadeedii aadka u jecleed. markii ay dib ugu laabteen qasrigii madaxtooyadana waxaa la waayay katiinadii. gabadhii oo aad u oysay aadna u jecleed katiinadaasi waxay abeed ka codsatay in wax waliba la sameeyo si loo helo katiinadaasi. ninkii ganacsada ahaa oo arrintii fahmaya waxa uu sii watay socodkiisii. intiiba wax yar uusan socon ayuu dib u soo eegay dadkii iyo wixii ay sameynayeen isagoo oo la yaaban hadafkii ujeedka ay kala yihiin iyo inay run tahay waxa ay sheegayaan. laakiin waxa uu arkay dadkii oo dhammaantood inta soo wada laabtayba dadkii waxay u sheegeen ninkii ganacsadaha ahaa in aysan jirin qof iyaga kamid ah oo saaka hore u soo qaatay cunno. waayo qof waliba waxa uu ku fikirayay in markii banaankaasi loo yaaco midkood uu si fudud ku heli doono katiinadii. ninkii ganacsadaha waxa uu ku yiri haddii aad haysataan wax lacaga waxaan sidaa timir iga iibsada cuna baaritaankii iyo baadigoobkii katiinada boqorkana halka ka sii wada. sidii ayay yeeleen. ninkii ganacsadaha waxaa meeshii looga iibsaday dhammaan wixii timir ah ee uu wada magaalada Baghdad. waxa uu helay faa'iido ka badan intii uu sugayay. khaliifka ayaa loo sheegay arrintaasi. isaga iyo askartiisii ayaa soo baxay waxayna banaankii ay ka socotay baadigoobka katiinada gabadhiisii ugu yimideen ninkii ganacsadaha. khaliifka ayaa weydiiyey warniyo maskax badanida xageed ka keentay fikirkan ganacsi ee la yaabka ah? sidee kuugu soo dhacday in dadkan ay gaajoon doonaan aad timirna halkooda uga daba geyso? ninkii ganacsadaha ayaa u sheegay inuusan waxaan shaqo ku lahayn ka keenay timirtan Dimashq ee dalka Suuriya una waday Baghdad. khaliifkii oo aad ula yaabay arrinkan iyo arrinta uu sheegayo ayaa waxa ku yiri warniyo sidee suuragal ku tahay in badeeco halkii asalkii horeba laga keenay aad dib inta ugu soo celiso haddana faa'iido ka raadinayso? ma xanuunsan tahay? ma waalan tahay? ma wax qaldan baa lagu soo sheegay? warniyo qisadaadu waa maxay? ninkii ganacsadaha
waxa uu ku yidhi waxaan ahay agoon hooyaday ayaa dhexda ii xiratay oo isoo korisay waxa ay ugu bixisay awood waliba ay lahayd waxay ka sabartay hurdo iyo hoyaad waxaan ahaa cunug aad u dhib badan oo aan nasan hooyada wareeriya xataa inta ay shaqaynayso jaanis uma siin jirin hooyaday inay shaqadeeda si nadiif ah u gudato oo aan aniga meel sii fadhiyo markii aan soo gaaray 9 sano ayay hooyaday xanuunsatay waxa ku dhacay cudur curyaamiyay oo ay sariir la gashay 9 jirkaygii ayaan waxaan bilaabay inaan u halgamo nolosha hooyaday waxaan sameyn jiray wax waliba ay sameeyaan dadka waaweyn ee ganacsatada ah ma haysta hanti fara badan oo wax ku raadiyo laakiin inta yar ee aan helo ayaan tuuladan intaan wax yar uga iibiyo u geyn jiray tuulada kale si aan uga soo faa'iido markii aan faa'iidada soo helana waxaan tuuladeedii dib ugu soo noqon jiray aniga oo cararaya oo ka fikiraya hooyada tolo masriirtii ka soo dhacday xaaladeedu sidee tahay maxay ku sugan tahay mar waliba oo aan iridda ka soo galo hooyada iyo aragto ilaa aan cuntada ka siiyo agteeda ka fariisto waxay dhihi jirtay ilaahayow adaa khasaare iga ilaaliyo wiilkan isiiyay ilaahayow isagana khasaare ka ilaali gacantiisa halka uu u taago ilaahayow dahab uga dhig ilaahayow meeshuu damac ka soo galaba faa'iido ka sii ilaahow intii nafu ku jirtuu nool yahay ilaahow khasaaraha tusin sidaad anigaba khasaaraha iga ilaalisay ilaahow wiilkaygana waa ilaali waxaan si gaara u sii xusuustaa inay hooyaday iigu ducayn jirtay ilaahayow ciidaba ha noqotee ilaahow dahab uga dhig ilaahow gacanta meeshuu u taago ha ku khasaarinin maalinkaa wixii ka dambeeyay khaliifow haddii aan ciidda soo qaaday xitaa dahabay noqon jirtay marka ayuu inta fooraarsaday ciiddii dhab gacanta ku soo yaray furay markuu gacanta sidaa uga furayba waxaa ciiddiiba ka soo dhex baxay katiinadii la raadinayay ilaa iyo saakay oo gabadhii khaliifka ay lahayd khaliifkii intuu aad u farxay madaxu weynaaday ninkii ku soo booday ayuu wuxuu ku yidhi katiinadani iyo ciddii heshaa waxaan sii lahaa abaalmarin aad iyo aad u weyn abaalmarintii aan rabaa inaan ku siiyo oo diyaar ku ah laakiin waxaan ku weydiinayaa ma jirtaa wax kale hooyadaa kugu ducaysay ninkii ganacsadaha wuxuu ku yidhi waxay hooyaday sidoo kale dhihi jirtay ilaahayow gabdhaha boqorrada gabar ka midana ilaah wiilkayga siiye khaliifkii waxa uu ku yidhi katiinadani waxaa iskale gabadheeda waan weydiin doonaa waana u sheegi doonaa arrintaada haddii ay ogolaatay inay adigu ku guursato aan kugu meherin doonaa ninkii ganacsadaha oo tartankii iyo ujeedkii hadafkii lala galay ahaa in la khasaariyo waxay noloshiisii oo dhan isku sii bedeshay farxad hor leh waxaa loo guuriyey gabadhii khaliifka waxauna faa'iido badan ka helay timirtii hadafka iyo ujeedka aan ka leenahay qisadana waxay tahay in aan waalidkan ka ducaysano haddii ay labadaba inoo nool yihiin aan si isku mid ah uga wada ducaysano haddii midkood inoo joogana aan ka ducaysano ducada waalidku xataa haddii ay soo dahdo way soo duxi doontaa waan wada heli doonaa waa ku mahadsantihiin daawashadiina